gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cid ahna musharax madaxweyne ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay isagoo ka soo degay gegida ay diyaaraduhu ka hadaan ee Cigaal International Airport isagoo gudoomiyuhu socdaal ku soo kala bixinayay dalal kala duwan hayeeshee gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa waxa ku soo dhaweeyay madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa dhalinyar uqaal iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbigaasi cadaaladda iyo daryeelka haddaba markii uu ka soo degay madaarka Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa gudoomiye Faysal Cali Waraabe waxa uu halkaasi kula hadlay warbaahinta waxaana uu uga warbixiyay socdaalkii uu ku soo maray dalalkaasi waxaanu yiri waxaan soo maray dalal badan alxamdulillah rabbil caalamiin lana waxa weeye qadiyadeena waa meel ka soo maraa qadiyadeenu waa in doox Hargeysa dhaafta magaalada Latin America aan tagnay xisbi ahaan dalal badan baan ku soo baranay saaxiibo badan baan soo sameynay waxaan ogaanay inaan ixtiraafkeenaba aan dhibaato ku jireen inaga xageenu ay xagaleenu laaban yihiin waynu xaqeena doonan guulba nagu soo dhaamaaday alxamdulillah rabbil caalamiin ingiriiska waan xoobaan joogno ala kulana jaaliyadii waxaan soo gudnay meesha la yiraahdo imaaraadka nasiib waxaan ku helay waatan hore u sheegnaa waan socod badno waan la kulmaan khayrka tiyo arinta saldiga berbera wabti weeymi waan ku biiray kan waa ka rasmi aan uga qayb galay ودمين إن شاء الله تعالى كأس خير من وجود هذه. نقدر إن شاء الله تعالى وينو علامة سنين. وفق عدوى صورة أو تريتر. وحلة شرعية قضاياش الشرعيين أغلبية كل شرعيين لقاها لما وصد الشرعي باسكاليان وكلاوي. إن عدو قال عرضوا معها دولة العاية معها. هذا حويه فكرة بالله ماذا تتكلم ماذا ولا قف عن هذا وحن كنت ترتمن أنا كاب برنامج في عام لكن ما أنا كاطل في عام ما هرام الشوح اللي هذا سنة قطان يسكت حكي يسكت كل نقطة هسك كريم شركة ودوات أنتم في عام بس ميت لكن سياسة وهو بريقتين أصحابته وحن دولنا صدق حسبنا سكوا كان دولنا صدق حقود دولنا وشرنا وين كود أوف كوندكت سميسنا geesta kale gudoomiyaha ahna musharaxa madaxweyne xisbigaasi cadaaladda iyo daryeelka waxa uu jawaab adag siiyay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre waxaanu mar kale yiri waa wake up call waxa weeye baraarujin weey haddii maanta baraarugi weyno sida USCD loo qabsaday ayana loo qabsan doon soo imika dulba lagama baraarujin Soomaaliya toos ma jirto anaga keenay Soomaaliya toos qodbadu u bixinayo farmaajo wuxuu soo celinay cadaawadii Itoobiya iyo Soomaalida Soomaali weyn buu ku dhawaaqay taasna waxay keenaysaa inay geeska Afrika oo ka degay rabshadii Soomaalida ayuu soo celinaya anaga kulama jirno Itoobiya Kenya Djibouti kulama jirno وحشة الصومالية المجتمع ولا كلا فوفي قولوا هاي قاعدين. جست كلا قدوميها حسب معارض كعيد إنجنير فيصل علي ورابي وحكى له كهالله إلى بعض الجرسور كالصومالي لان أنا كل من يجي يحاول كوبا سياسة الصومالي لان وحانو شيء إن يقولني كأهذانا سياسة الصومالي لان خالد يوسف حسن خالد فانتستيك تلفزيون كعالم الصومالي نيوز مقالة هرقيسة.